dowladda Umayyadeenta waa dowladdii labaad ee Islaamka soo marta waana khilaafadii labaad ee muslimiinta sidaa darteedna waxay mid ka mid ah dowladihii ay taariikhda inta badan qaada dhigtay waxaana ugu horeeyay una kala dambeeyay xukunnada inamadii uu Umayya dhalay dowladdii Umayyadeenta waxa la aasaasay 662 waxaana burburtay 750 miilaadiga waxa la oran karaa waqtigii uu maamulayay Hisham bin Abdulmalik inay gaadhay heerar aad u wanaagsan dowladdii Umayyadeenta waxaana ku fiday wadanka China ilaa Faransiiska oo galbeedka ah oo ay furteen balse markii uu geeriyooday Hisham waxa maamuladii ay u kala dambeeyeen inamadiisa iyo inamadii uu awoogo ahaa halkaas ayaana ka bilaabmatay furfurkii dowladdii Islaamiga ahayd ee al-Umayya waxaana barbilow u ahaa markii ay gabi ahaanba joogsadeen futuuxaadkii Islaamiga ahaa sidaa darteedna dowladda Umayyadeenta waxa ku yimid dagaallo gudeed iyo khilaafaad iyada goobihi ay maamuleysay dagaalo qabiilaysan ayaa furmay iyo kacdoon halkaas ayaana ka sii socotay furfurkii dowladdii Islaamiga ahayd ee al-Umayya intaanu geeriyoon Hisham waxa uu damacsanaa inuu xulka ku wareejiyo oo mudnaa wiilkiisii Waliid balse Waliid waxa uu ahaa qof dhalinyar ah oo doonayay inuu waqtigiisa dhalinyarnimada uu qaato sidaa darteedna waxa uu jeclaystay Hisham in khaliifkiisa ka dambeeyo uu noqdo wiilkiisa muslima fikirkan ayaa waxa soo jeediyay Hisham balse dad badan ayaa ku gacan saydhay waxaanu yeeshay mucaarado fara badan Hisham markuu arkay xaaladda halka ay marayso waxa uu ku adkaystay in Waliid uu noqdo khaliifka ka dambeeyay isaga markii Waliid jegada loo dhaariyay ee uu qabsaday waxa uu dhamaanba iyagii iyo familkoodiiba meesha ka saaray oo uu laayay dadkii ku ayidsanaa aabihii inuu xukunka u wareejiyo wiilkiisa muslima inta kadib waxa bilaabmay argoosi iyo kacdoono qabiilada ay sameeyeen waxaana ugu cadcaddaa kacdoonadii al-Qadriya oo aan awalba taageersanayn maamulkii reer Umayya waxaana Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan ku taageereen in ka badan 1000 dagaalyahan oo dhaqaalahoodii iyo hantidoodiiba wata dhaqaalahaas markii hore Yazid waxaan u jihaystay halkaas qasrigii Malik Waliid iyo reerkiisa oo dhan waxaana Yazid ku guuleystay inuu dhamaanba jiiro askartii ilaalinaysay waxaana ku guuleystay inuu dilo boqor Waliid halkaas ay ku istaagtay maamulkii Waliid waxaana jegadiisii la wareegay Yazid markii uu xukunka qabtay Yazid ayaa wuxuu sameeyay inuu meesha ka saaro dhaqaalihii uu ku bixin jiray ciidanka waxaanu sameeyay nidaam taqashuf la dhaho oo hoos lagu dhigo dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka baxaysa dawladda rawaatibtii ama mushaharkii ay qaadan jireen ciidankana hoos ayaa loo dhigay halkaas ayaa gadoodkii ciidanka uu ka bilaabmay waxaana ciidanku ku guuleysteen inay inqilaab ka dhan ah Yazid ay sameeyaan halkaasana Yazid looga saaray meesha magacay u bixiyeen wuxuu noqday hoos u dhigay waayo dhaqaalihii markaas soo galayay ciidanka ayaa uu hoos u dhigay inta iyo in ka badan ayaa ka dambeysay burburkii dowladda Umayyadeenta maanta hadaan isnaahno dowladda Umayyadeenta qaabkay ku burburtay يعني بلاوا بريتو لا ينك بحينا لكن انت سنتكسو كويا هذا يد معسنتي